madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wasiirka dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay tababar u soo xireen ku dhawaad 2500 oo askari kuwaas oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland cutubka 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 43aad ee maanta tababarkan loo soo xiray ayaa waxa ay tiradooda kor u dhaafaysay 1500 oo askari xiritaanka tababarkan ayaa waxa maanta soo xiray madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wasiirka dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socday AMISOM dhanka kale cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland oo iyaguna tababar ku qaadanayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa iyagana tababar loo soo xiray iyagoona soo bandhigay tababarkii ay qaateen iyo agabkii militari ay ku howlgali lahaayeen munaasabada ayaa si wada jir ah waxa uga hadlay taliyaha ciidamada Jubbaland Aadan Maxamed Ibraahim Aadan Kojar wasiirka dowlaha gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyagoona si isku mid ah u cilaamiyay dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab dugsiga waxa la aasaasay 3 bishii 2016 xilligaas oo la qorsheeyay in uu ku xaroodo ama lagu tababaro ciidan dhan hal guuto sidoo kale wuxuu qaatay tababarka kumaandooska oo ay ka baxeen 2 hormood oo marka waxaan u mahadcelinayaa dadaalkii iyo dhabar adeygii waqtiga badan ay soo qaateen ciidamadan maanta horteeda fadhiya waxa kale oo farxad weyn u ah ummadda Soomaaliyeed iyo inkastoo wax garanaysaba diyaar garowga tayada ciidankan uu leeyahay iyo sida uu ugu diyaar garoobay inuu cadowga wadanka uu uga saaro ama uga sifeeyo annagu dowlad ahaan saakaanu soo xidhnay tababarkii annagana qaybteedii muddooyinkan dhowna waxa kaliya ee harsan waxa weeyaan iyadoo aan loo kala eegayn federaal iyo dowlad goboleed oon la isku kala saarayn in loo midoobo cadowga sidii looga saari lahaa ama looga sifayn lahaa gobolada dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose waxaan hadda sugaynay waa inaan hawl galno ciidankan hadda tababarka loo xidhayo waxaan maran qayb kamid ah horay u sii socotay oo shaqo kale gashay qoladan hadda waxay diyaar u yihiin inay hawl galaan iyadoo loo diyaarin doono gaadiidkoodii iyo qalabkay u baahan yihiin Soomaaliya maanta ciidamada jooga hadday isku tashadaan oo innagu aan isku xisaabtanno walaalaheena AMISOM xataa waan iska inay bal caruurahoodii gaaraan oo intay waan ka maarmi karayna haddaan innagu si dhab isugu xisaabtanno Axmed Caydi Diriye TV-ga iyo raadiyaha Goobjoog magaalada Kismaayo.